ما شاء الله ما سنتهي أدر أنا جماعة عجاب السماحيين وقاس عبدي بورتايلي هذا حكما اسمه الصوماليات إن وده كان سويد إنه كنول خاصة مقالة أوروبرو إن ما شاء الله aniga run ahaantii saan ku sheegay waxaan degan magaalada Örebro runtiina anagu waxaan u leenahay jaaliyad aad iyo aad u weyn oo la yiraahdo African Sound Culture Center oo jirtay ilaa horaankii sagaashamiyadii taasina waxay noo fududeynaysaa in aanu la shaqeyno waalidiinta hay'adaha kala duwan ee bulshada iyo kuwa dawladda iskoolaadka iyo meelaha kale oo dhalinyarada lagu hayo ahaan lahayd jaaliyadaha sportiga ee meelahaas oo kale marka waxyaalo badan ayaanu ka soo shaqeynay oo jaaliyada khaas ah ka soo shaqeysay aniguna maanta waxay casumay ururka isbahaysiga Soomaaliyeed inaan kala qayb qaato gabagabadii gunaanadkii mashruuc 3 sano oo u dhameeyay socday aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa intii jeer adigu aad ka qayb qaadatay dhibaatooyinkii aadka looga hadlay hadda aad noo tilmaami karto maxaa ka mid wallahi dhibaatooyinka ugu badnaa oo waalidiintu inta badan ay ka hadlayaan waxa weeye xagee baan caawimaad u raadsadaa anugeygii waa dhibaataysan yahay wiilkeygii iyo gabartayda dhibaataa ku socota maxaan ka qaban karaa daroogu gadaa ama daroogu isticmaalaa oo inta badan waalidka iyagu ay runta ay dareemayaan inay ceeb ay ku tahay in ay caawimaad raadsadaan oo ay la dhuumanayaan dhibkooda dhibkii haddii la qarsadana de waxa weeye dhibkii uma sii badanaya marka waxyaalaha ugu waaweyn ee waalidiintu inta badan ay ka hadlaan waxa weeye xagee baan caawimaad u raadsanaa siyaabo kala duwan runtii way keeni kartaa waxa weeye waalid waxa jira luqadii aan garanayn oo wadan ku cusub aan kala garanayn hay'adaha kala duwan ee dawladda caawin kara iyo inaga oo Soomaalidan nahay ba sas ka qabnaa hay'adda arrimaha bulshada oo u haysanaba hadaanu la tashano ama aan caawimaad weydiisano in caruurtan la ka qaadanayo oo ay gaaladu la wareegayso laakiin inta badan saas ma aha hay'adda social science-tiga ama kuwa arrimaha bulshada waa muhiim waalidku inay la shaqeeyaan markii dhibaato soo food saarto waa meesha kaliya caawimaad u keli karaan dad expert iyo aqoon weyn u leena ay ka heli karaan markaan waxaan kula talin lahaa waalidiinta in ay ku dadaalaan in ay la xiriiraan hay'adaha kala duwan ee caawin kara waalidka ka walida markaan soo ugu dambeeyay waxa wadankan Soomaaliya aad u soo farqadanayay dadka dhalinyarada Soomaalida ay dhaxna isku geystaan loona geysto tan oo hadda arrin si weyn loogu baraarugay sidaba waxa hadda dhacaya ay u noqon karaan kuwa dhamaada looga hortagi ilaa falkii uu taagan yahay bil walbana waxa la qabtay dhalinyarada Soomaalida guud ahaan wadanka Soomaaliya hadda inta uu yahay tirada lambarka saxda ah saddex kow dhalinyarada Soomaalida ayaa la duubay taawo lambar demme سوشيال ميديا سيدان موضوع سيدان بس ما تقدر لو بعد خاص هو عقد سيدان والله هذا سؤال aad weyn weeyo dawladda Swedish runtii 10 sano u dhameeyay aad iyo aad baarlamaanka wadanka looga hadlay heer gobol iyo heer degmo looga hadlay dibkaasina wuxuu noqday mid sii kordhaya waliba Soomaalida hadda aad iyo aad buu noo saameeyay saameyntaasna waxa keeni kara waan u arkaa waxa weeye in qofku dibka marka hore isagu u qirto inuu dhibaataysan yahay markaas uu caawimaad heli kara yani haddaad bukaana tahay xanuunsanta waa dhakhtar u tagto dhakhtarku daawadu ku siiwana ka qaadato way marka dib haddaan u noqdo waa sidaan ku iri waalidku markay dib arkaan waa inay caawimaad raadsadaan waxaana keenaysa runtii dhalinyarada intooda badan ee dhibaatooyinkan ku jira oo ku wadan ku dhashay maxaan ku raadayay ku barbaaray inta ku soo la ekaaday laakiin waxa keenaysa maadaama aysan ku guuleysan waxbarashadii ama si kale ay dad khalad ah ay la kulmeen dhalinyaro khalad ay raaceen maandooriye ay isticmaalaan ama lagu khasbo inay isticmaalaan taas ayaa keeni karta su'aashada kale oo sidee baa lagu hortagi karaa waxa lagu hortagi karaa waxa weeye in aqoonta kor loo qaado
oo waalidka iyo caruurta xiriirkooda la adkeeyo. haddii markaa la adkeeyo waxaa sahlanaanaysa in hooyada iyo aabbuhu ay caruurtooda hagaan oo ay dariiqa toosan ku toosiyaan. laakiin haddii waalidku misan waxba aysan garanaynba oo ay u haystaan oo kaliya waryaa iskoolka tag masaajidka tag kaliya ay u haystaan, intaa u dhaxaysa masaajidka iyo guriga ayaa intaasu caqdabadood ay hor taagan tahay. taasna waalidku inuu u diyaarsan yahay oo caruurtiisa kala hadli karo oo caruurtiisa ka waanin karo ayaan anigu asaas taas u arkaa. si doctorku noo sheegayay doctor Liibaan wuxuu yidhi dadka inta badan waxaa keenaysa in maskaxiyan caruurta u jiran tahay oo ama ay maqana jooga yihiin. waxaa keenaya waxa weeye in aysan iyagu waalidkii caruurta aysan isla socon. canugan wuu kula joogaa guriga waa aragtaa, laakiin ninkan waa maqan yahay, meel kale ku xiran yahay oo ku xawilan yahay. marka in aqoonta la kordhiyaan u arkaa. ururka isbaahisiga Soomaaliyeedna mashruucaanu qabtay iyo mid ka badan iyo mid ka ballaaranba inuu sii wada ayaan kula talinaya.